Waxaa maanta soo idlaatay ololaha musharaxiinta ee Somalilan ee xilka madaxweynenimo ee ay ku tagayeen gobollada Somalilan. Labada xisbi ee ugu waaweyn Somalilan ee Wadani iyo Kulmiye ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay codadooda shacabka ku soo bandhigayay gobollada waaweyn ee Somalilan, iyadoona xisbiga Wadani hoggaankooda uu ku marayay safaro aad u ballaaran gobollada Somalilan, isagoona shacabka ku nool gobolladaasi guud ahaan ka dalbanayay in ay codkooda siiyaan, maadaama Somalilan loogu bartay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo. Sidoo kale, hogaamiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale soo maray gobollada Somalilan, isagoona sidoo kale kulamo aad u ballaaran loogu sameynayay gobollada shacabka uu kula kulmayay, isagoona sidoo kale soo bandhigayay aragtidiisa ku saabsan waxyaabaha uu ka qaban doono Somalilan. Labada siyaasi ee xisbiyada Kulmiye iyo Wadani ayaa si aad ah warbaahinta isugu weerarayay, islamarkaana ku soo gudbinayay khudbado ku saabsan qof waliba waxa uu yahay, islamarkaana meelaha qaar khudbadaha ay ka jeedinayeen ay u muuqdeen khudbado lagu durayay hadba siyaasiga kale ee ka soo horjeeda. Siyaasiga xilliga la tartamaya waa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciro, fanaaniin si aad ah looga yaqaano gobollada waqooyi gaar ahaan Somalilan, ayaa sidoo kale kambeynarada qayb ka ahaa, islamarkaana garab taagnaa labada mas'uul. Waa Cabdiraxmaan Ciro oo xisbiga Wadani xilligan hogaaminaya, islamarkaana doonaya in uu qabto hoggaanka Somalilan. Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhowrkii sano ayna soo dhaafnay diyaar garow aad u ballaaran ugu jiray in uu noqdo madaxweynaha Somalilan, isagoona dhowr sano ka hor sidan oo kale u sameeyay kambeyn uu ku doonayay in xilka madaxweynenimo ee Somalilan uu ku qabto, ha yeeshee loogu guuleystay doorashadii ayna soo dhaafnay, islamarkaana uu ku soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee 13 Nofeembar ee fowda inagu soo haysa doorashada galaya. Muuse Biixi Cabdi ayaa xilligan u muuqda mid daneynaya in mar kale uu qabto xilka madaxweynaha ee Somalilan, isagoona buuq aad u badan ay kaga furan yihiin gobollada Somalilan, iyadoona tan ugu daran ay tahay dagaalkii Somalilan ay la gashay maamulka ku-meel gaarka ah ee Khartoum State, islamarkaana ciidamo badan Somalilan loogu dilay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool, iyadoona inta badan ay suurtagalka ay tahay in Muuse Biixi Cabdi uu shacbiyad badan uu ku lumiyo dagaaladaasi, islamarkaana xilligan ay jiraan ciidamo ka tirsan Somalilan oo ay gacanta ku hayaan ciidanka SAC Khartoum. Sidoo kale, waxaa jirta heshiiskii Muuse Biixi Cabdi uu la galay waddanka Itoobiya, islamarkaana uu ku saxiixay qayb ka mid ah baddeena Soomaaliya. Taas ayaa iyadana suurtagal ka dhigi karta in Muuse Biixi Cabdi uu lumiyo xisbiga Kulmiye, islamarkaana looga awood sheegto tartanka doorashada ee qofka iyo codka. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku qancinaya in mar kale ay doortaan si uu u dhammaystiro waxyaabaha qabyada ka ah uu doonayo inuu ku kasbado shacabka Somalilan oo qaarkood ama inta badanba kasoo horjeeda siyaasadda uu wax ku maamulayay dhowrkii sano ayna soo dhaafnay Muuse Biixi Cabdi. Xisbiga aadka u liita tayo ahaan iyo tari ahaan marka loo eego ee UCID ayaa isna u muuqda mid sii liidanaya marka loo eego codadda shacabka oo ay soo bandhigayaan Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciro. Hadba waan arki doonaa 13 bishan Nofeembar aynu ku guda jirno qofkii ku guuleysta doorashada xilka madaxweynaha ee Somalilan, iyadoona indhaha caalamka si aad ah looga hayo doorashada la doonayo in maalmaha fooda inagu soo haya ay ka qabsoonto
Somaliland.